gaalkacyo waxay foolanaysaa dagaal u dhexeeya hawiye iyo daarood cidday guusha raacaysa muuqaalka kugu dul istaagaya cidda gardaranna muuqaalka kugu dul istaagaya dagaalka wuxuu salka ku hayana muuqaalkan kugu dul istaagaya waqooyi bari Soomaaliya oo sheegtay inaysan mar dambe xishoonayn ay soo socoto gooja cadatu hadda kadib imaanaysa in la isdooxo ay imaanayso in mar dambe ciidanka waqooyi bari Soomaaliya aysan gacmaha ka xirxirnayn qodobka isagana isla muuqaalka iyo qodobkayga u dambeeyaan kugu dul istaagaya inta aan qodobadaas xaaladda guud ee Puntland laftirkeeda qayb u ka yahay ku dul istaagin waxa waraaqda soo saaray golaha mustaqbal xumada Soomaaliya soo saaray waraaqdaas horta caawa Soomaaliya mid ogaada waddankan Siyaad Barre wuxuu ku qabsaday inqilaab qori wato ku qabsaday laakiin Xamza Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh Maxamuud waddankan waxay ku qabsadeen inqilaab aan dhig ku daadan waxaan u fududeeyay inay dalka qabsadaan mar golaha mustaqbal xumada Soomaaliya oo waxay taagan yihiin Soomaaliya lagu celiyo kumeel gaar waa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf weeye ha loo celiyo kumeel gaarka Sheekh Shariif ana ka saaray kumeel gaarka dalka tiibay isku raaceen waxaabaha wiye waxaaba daarood waxaaba eelay waxaabada caalamka qaarkood waxa la leeyahay Soomaaliya ciidamada nabad ilaalinta ee jooga yaan mar dambe Soomaaliya shalay ma ogeed qof iyo cod ma ogeed shalay in Soomaaliya yaan cunaqabateenka laga qaadin yaan Soomaaliya deynta laga cafin yaan Muqdisho nabad noqon oo dhiigu ha qulqulo ma ogeed in la lahaa haddana yaan ciidanka xoog dalka Soomaaliya is al-shabaab la dirin maanta waxay maraysaa Soomaaliya oo qof iyo cod ku naaloonaysa oo inay shidaal qodad ku naaloonaysa oo inay dunida la jaanqaad ku naaloonaysa oo maanta caasimadii nabad tahay khawaarij saa loo baacsanayo duurka weliga ma aragtay qof janna ka cararay waa kuwaas kuwii awal xaabaha wiye u shaqayn jiray waxay tabarta la waayeen waa kuwaasa kuwii beesha caalamka ku shaqaysan jiray waa kuwa nabadda Soomaaliya diidana dadka jannada ugu yeeri jiray Hargeysa ka yimi dadka gobolka Banaadir joogay umada kale Soomaaliyeedna khaldi jiray waa kuwa maanta jannada iyo dadka ku baabiya ka dhuumanaya maanta waa kan nageeyay waa cararaya waa kaasa gamadiid waa cararaya kuwii kale isaaq ay halka ku dhuumanaya waa cararayaan Sheekh Caldheere iyo tiimkiisa waa kuwaasa kaba ku tukadayo kulli janna ka cararayaan marka dalkaas maanta awoodda leh kuwaasna duurka saa loogu baxsanayo oo laga harin waliba ba waxa la leeyahay loo celiyo kumeel gaar waa kugu celinaya dalkan Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la dhoo Xamza Cabdi Barre inqilaab aan dhig ku daadan bay ku qabsadeen kursigaana ma dhiibayaan ama beesha caalamka u gal ama Soomaaliya kumeel gaar ba loo celinaya dheh ama hadday labadaas kursiga dhiibaan marada ay ku jiraan ragba kuma jiro haddaan cod si cad kugu sheeyaa marada ay ku jiraan nin ragana kuma jiro qabiya ninkada dhamaystira waa been waxay deen afiyeen ma jirto ummadda intaas been bay ku soo wadeen haddaan warka ay sheegay uu sax yahay barnaamijku imaan doonaa nimankaas cida kursi siinayaan ma jirto kuraasna iyaga waligood ku fadhinay inta maanta Soomaaliya waxa lagu soo gaaray ra'iisul wasaare iyo madaxweyne aan loo kala qoor salaaxi karin la isku diri karin loo kala niikin karin dalka hal aragti yeeshay xisbiyaashiyo la aadayo markaasay waxay ku leeyihiin maanta iyo kow laga soo bilaabo fursaddan ka faa'iideysanaya waxa jira wax afkaaga ku macaanay laakiin afka walaalka ku macaan waxaan baa u dirayaa nimanka daaroodka ay kuraasta ku fadhiya waxaan leeyahay halka hadduu nin hawiyaa soo istaago oo dowladnimada Soomaaliya hal difaaco waa kuwa khawaarij ba laga adkaaday halkaas laga baxay waa la caayay waxa leeyahay wariyaha ma anaga dowladnimada noo sheegay hawiyaa ay kursi haysta ama waxa leeyahay waa hawiyo kursi boo istaayo kursigiisu difaacanaya wariyaha orod malabaaniga cun laakiin kuwa kuraasta fadhiya ee daaroodka ah waxa maanta Puntland lagu karkarinayo oo maamulka daarood ugu facaweynaa ah oo hooyadii Soomaaliya ah oo aad ka soo jeedaan reerka doonta daaroodka ah إلا من رئيس وزراء إلا من أجاسمه إنا كل جن عدر الدولة السورية كنت فعلان ويا نين كان إمارات كوشقية أو نتنياهو وشقية أو شيشيا وشقينية أو مدري بوتران يجي خاتب بلا كتاعيه الشيء إنه مشاريع نقاطه أو العكاس قاطه waxa sheegtaan wixii danaha Soomaaliya uu ka rabay immigration-nada iyo hadii qof shaqo loo geenay dhamaantood inuu dawladda si direct ula soo xiriiro inuu teleefoonadeeda ka deyn la yahay laakiin hadda waxa la run laga aamusay baa leeyahay been baa ka xoog badisa runta alla aamusantii Saciid Cabdullaahi Daniga laftirkiisa hadda kuraasta ku fadhiyaan shalay ku fadhiyay gabayada aad qortaan maanta iyo erayada sarbeebta ah oo macnaheedu noqonayo marka la eego isaga loo eego suu shalay ahaa iyo maanta
puntland noo ilaaliya halkana aan mishaarka ka qaadano taasay noqonaysaa gabayada aad diraysaan si cad oo bareer ah intaa kuraasta fadhida ee dowladnimada soomaaliya u difaacdaan weeye oo aan laalaab lahayn oo aan shaki lahayn xii xukunkaa soo haray berri baa lagaa qaaday berri xasanna ma hayo xamsana ma hayo ilaahay baa berri haya ilaahay baana gacan weyn wayarzuquhu min xaysa laa yaxtasib allah meel ogeyn kaa irsaaqaya maanta runta sheeg oo dowladnimada soomaaliya u hiiliya ama nimayahow intaas oo wiil oo ka yimi jubbaland oo ka yimi puntland oo ka yimi waqooyi bari soomaaliya oo daarood ilala ah baa xamar joogay dadkina albaabadii baa ka xirateen idinkiina waa aamusantihiin dowladnimadii ma difaacaysaan ninkan hadda ciidanka xoogga dalka soomaaliya diidan dastuurka soomaaliya ku qoran tahay puntland state of somalia ciidamada puntland inay yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aragtida noocaas xataa ma difaaci kartaa waxaa la aamusantihiin anigu ma aqaano idinkala saari maayo gebigiinaba inaad dowladnimada soomaaliya difaacdaan waa ku khasbantiin ninkaasa ku daawanin odayga ah fursad buu idin siiyey xoolaha wiya meeshaan laguma cuno soomaalida waad u shaqaysaan isaguna berri buu xukun ka tegayaa idinkuna berri baa ka tegi doontaa maanta dowladnimada soomaaliya difaacda kaga baahan difaaca xaabaha wiye iyo xaaba daarood iyo xaaba beesha caalamka iyo waxaa la aamusantiin aan u garan maayo laakiin aad dhiig isku yeeshaan oo aad dantiina garataan oo aad soomaaliya waxa badbaadada tahay waa ogtihiin aad garataan oo tiifiyada si bareer u timaadaan banaanadii ku bogaadinaya qodobkaas halkaasaan kaga gudbay waxaan dul istaagayaa meesha galmudug iyo puntland colaadda ka socota horta galmudug iyada waa u imaanaya halkaa idhig reer puntland si caadi aan wada hadlaynaa gaalkacayma balaayaa ka jirtaa ii sheega ani meesha abtiyaashii baa degan ninkan cismaan maxamuud dekanada uu boosaaso kala soo cararay dekanada uu qardha kala soo cararay markuu gobolka bari joogana wiilasha bahdir oo boqortooyada ah oo puntland dhan shalay isugu tagtay oo waxba laga qaadi waayey oo kursi maaliga ku helay oo tii isaga iyaga iyo cabdulaahi oo daaro dhan wata kale gaadhay la ogaa micnaheeda maaha inuu gaalkacyo ka dhex raadinaye boosaasaba iyagaa wada dege hadduu ka adkaanayo sidii jiridii laag uguma dhunteene si bareera oo dowladnimo ah buu u weerari lahaye dekanada oo ciidankeedi kugu soo daabulayo oo ii sheeg maalin kasta intaasoo kun oo ciidan uu gaalkacyo ku soo gurayo gaalkacyo hadday caawa xabash qash tiraahdo dhanka puntland isbitaal ma leedahay idinkaada weydiinayaan leyr ma leedahay goobo ganacsi ma leedahay intaas ishaas xaasidnima idin yeeshay hadda runta idiin sheegaya ishaas xaasidnima idin yeeshay laakiin hal qodob baa idiin badbaaday qodobka idiin badbaaday waa maxay waa nabadda aad ku wada nooshihiin idinka iyo dariskiinna shalay toole idinka gudihiina isku marnaan jireen dhakhtar iska dila kan kale iska dila gabar iska dila gabar kufsada mid kale caaya waxaa dowladnimada 28 sano qoys maxamuud saleebaan la dhaho oo aan caqliyan korin oo idinkana aad intaas idan xataa ku canaana idan oran wareede reer dhan baan nahay lix jerban kursi ku soo noqonay isma dhaanne puntland dhig joojin xataa ma lehe waxaan ciidan iyo hub iyo balaaye iyo maanta dhan waxaa lagama shaqayn karee war dadku horumar buu ku tilaabsanayaaye caqliyiinu dib u shaqayn waayey colaadda gaalkacyo siciid cabdulaahi dani horta waxba yeeli mayso dhiiqada cidduu gelinayana waa reerka halkaa degan wey oo majeerteen oo leelkasa leh oo cid kasta leh oo daarood leh oo deegaankaa degan meesha xabad baa dhacaysa u dhaxaysa hawiye iyo daarood si mulaaxa rabo imaaraadku rabaan gooni goosadku rabaan cid kasta rabaan kuwa beenta sheegay dhaa puntland baa lagu soo duulay puntland baa halkan laga yeeray inta saa tiraada shalay farmaajo la socotay inta sidaa leh markaan anigu saciid cabdulaahi dani waday oo aan dadka san ka gelinayay iyaga dhammaantood maxamed cabdulaahi farmaajo dekadaas garaaca diiday bay dabada ku wateen maanta marka haddaa ku wada socotaan oo puntland baa la badbaadinaya galmudug hala weeraro waxaad ka heshaan horta aniga waxba hayga siinina u malayn maayo in nimankaas dhulka wax ka yaallaan inay ciidan la'aan haysana u malayn maayo waxaan aaminsanahay inay diyaarado baqradaara haystaan dhankoodaana isbitaal leh oo caafimaadka loo aadaa dhankooda caweyska loo aadaa dhankooda nabadda loo aadaa dani waa bahar dhulbahante waxa uu kala soo cararay boosaaso iyo qardha meesha la dhaho haddii gaalkacyo laga aqbalay kolleyba anaa nasiib leh markaa soo qaxdaan garowga guryaha qaali idinkaga dhigaya garowga meesha la dhaho baan guryaha qaali idinkaga dhigaya afka idinka garaacaya waxaan leeyahay ninkii xaqlihii kursiga lahaa weeye kabaha iga daba qaada haddii kale nabadaada maanta ninkaa gacanta ka qabo odayaasha dhaqanka shir ha ka soo saaraan colaadda hadday tahay mid daarood gudihiisa uu ka wadana ka joojiya magaaladaas hadday xabad bilaabato way fududaasay ku bilaabato mudug laakiin waxa adag say ku istaagi leed ba xabadda adag waayo nimanka beesha caalamka lagu dacweynayo
degan meesha galmudug degan maxay ka shaqaynayaan soomaaliya warkaas si fiican u dhageysta nimankaas horta maanta dowlad soomaaliya adeerkooda xasan sheekh maxamuud baa horta u haya meeshaan ciidan baa degan xoogga dalka soomaaliyeed guutada 11aad baa degan danab baa degan galmudug ciidanka daraawiishto 15 kan u dhaafay leedahay u baqi maayo laakiin maseerka nimanka laga maseeray waxa weeye qof iyo cod shalay Saciid Cabdullaahi Dani baa qabtay xasan sheekh maxamuud waa hawiye ma qaban karo liibaan shuluq oo sacada oo hiraab ah oo hawiye ah isaguna kama qaban karo magaalada gaalkacyo qof iyo cod colaadaas intaas ay salka ku haysaa waa maseer weeye shalay haddaad maqli jirtay ciddaasi iyadoo maseer u dhimatay markii dhulbaanta dhashay halkaa kaga qusqaado waa maxaa galmudug qof iyo cod doorasho uga dhacaysaa weeye wax kale ma aha sababta walaaqda ninkaa u soo saarayo oo uu beesha caalamka ugu dacweynayo weliba intuu idiin soo saaray maahay inta kale uu liibaan ka qorayaa ka badan wuxuu ku shaabadeeyey inuu yahay liibaan war road inuu yahay liibaan qabqable inuu yahay liibaan jiri inuu liibaan yahay wax siftiya oo nolosha ku fashilmay oo gaalkacyo nabadda u diidan oo ciidan kusoo daabulaya oo diyaarada keenay buu ku shaabaday waa nin aan la dooran weeye oo kaambeen ku jira maanta waxaan arkay facebooka ku arkay meel la yidhi ceel dibir miyaa la dhahaa baan ku arkay isagoo sii maraya oo shacab qof iyo cod weydiisanaya waxaa dhinaca socda dani oo in adeerkiisoo jibiye la dhaho waxaa ka sii horreeyey sheekh shaakir baa ka sii horreeyey horumarkaas iyo waxaasoo dhan galmudug ka socda ninka loo diidan yahay hadda kuu sheegayaaye waa ninkan weli aan la dhaarin oo aan kursi madaxweyne qaban oo aan meesha madaxweyne ka noqon ee libaa shuluq la dhaho maalin kasta u gaalkacyo yimaado reer gaalkacyo oo ay markhaanti furayaan dani uma tago islaamka liibaanoo gaalkacyo yimi oo aan islaamka u tegin oo fadhigiisa ugu tegin oo soo karaameen ma jiro wiil mudug degan labada dhinacba intuu liibaan wax ugu tegay ka soo waayeyna ma jiro wiil puntland degan oo dhanka galmudug weliba nimankaa sacadka dhibaato ku qabana ma jiro way jiraan miyiga tuurtuur iyo geeldhicid iyo taasna geeljiray u yihiin kuwaas laakiin magaalada gaalkacyo markii laga hadlayo oo labeeteeda laga hadlayo dad xataa ciidan isku dhafa leh oo xilligii farmaajo la sameeyey oo maamulkaasi dhibaatada haddii wiil qof dilo oo dhinaca u cararo soo qabta haddii qof dhinacan kale ugu dilaan dhinacan kale u soo gudbiya ma ahaydeen mise miidaan ahayd liibaan hadda maalowta gaalkacyo waa joogay dadka xataa dhinacan kale daanteen anaga degan baa dhanka liibaan aaday oo kasoo kaambengareynayey oo jabiye u tegey oo sheekh shaakir u tegayey oo 100 kun oo qof baa gaalkacyo nabadeeda isugu soo baxay gaalkacyo horumarkeeda iyo nabadeeda Saciid Cabdullaahi Dani maseerkiisa ma loo baabiin karaa u malayn maayo reerkaas labada reerood meesha degan hawiye daaroodka inuu warkooda intuu mulaaxa galo ay isdagaali doonaan u malayn maayo anigu laakiin mulaaxa midda uu waxa weeye dagaal hawiye iyo daarooda waxaana qaxaya hadda kuu sheegaya daarood baa qaxaya sababta daarood maanta ma mideysna ismaan maxamuud dhaxaysa isa salaamin bahdir iyo bahdul baanta isa salaamin cumar maxamuud gudihiisa isa salaamin leel kasay ma jeerteen isma salaamaan ma jeerteen dhaxaysa ribcidiyaan cumar maxamuud isma salaamaan cumar maxamuud iyo daaween isma salaamo daaween iyo reer maxamuud isma salaamo ma jeerteen iyo carab saalax degan isma salaamaan ciise maxamuudka iyo cumar maxamuudka meesha degan isma salaamaan daarood maanta midaysan ma jiro marka Saciid Cabdullaahi Dani hadduu caqligiisa heerka uu siiyey daarood waxaa ku midayn kartaa ama shacabka puntland kusii jeedin kartaa inay gaalkacyo xabad ka dhacdo oo dagaalkaasi weynaado oo hawiye daarood noqdo oo xabaddaasi ballaarato oo aan hawiye meesha ka rarno ma guurayaan weligood bayse guurayn laakiin cidda maanta jilicsan wallahi waa adiga oo maatada ah haddaa kuu sheegaya wallahi cadiim inaan been kuu sheegay waa kuu naxayaa qofka maatada ah oo aan dagaal waxba ka aqoon oo colaadda mudug waxba ka aqoon oo bidaha ah oo midgaanka aan bahdhul bahantay oo xataa ciidamadii puntland kala qabyaaladeeyey walaalo waa adiga oo reerkoodii bahdhul bahantay wax kasta siiyey wiilkaana soo haray liibaan baa ku gebagabeynaya liibaan wax dhibaato ah oo uu deegaanka ku hayo maanta ma jirto waa musharax ma aha liibaan madaxweyne galmudugna hadda qoorqoor baa ah xukun laguma wareejin doorasho kuma guulaysan Saciid Cabdullaahi Dani sabab uu maanta ninka uga maseero qof iyo codka ku naaloonay oo xataa laba jeer ka hadlay hobyu ka hadlay oo sheegay oo yiri meeshaan hub lagama soo dejin karo oo ciidan laguma aruurin karo oo puntland lagama duuli karo halkan nabadda puntland baa laga ilaaliyaa 100 jeer buu sheegay waa ku celceliyey
لكن هذا الله بيش عالم كودع أدو إلهي ودع ولا لقات نيكا ساعد كا ساس الوقات أنت الله بيش عالم كما تقارن كل عيديد يساعد يا هبر قدير يا هوي ودن مجال حمر كتشي ده يسوع بيش عالم ولا وراني رانشريسكو مرتبة ويلي بكذا بحمر اللي قلنا ومر كده ما أنا كعرّي لفيسة وقعرّي بقى ميو صحيح نورت أمريكا كي بيش عالم كشيء بس بير عالم كلا عاد صورنا على تيمي وليا waxaan dadka kale aqoon baa tahay reerkaas waxa gafka ayo iyo ninkan awraaqaha ka qorayso reer gelin ka bix hadii kale bari iyadoo ka xun oo ka fal xun oo aishay aad shalay ma ahayd boqorkaygiyo ma ahayd boqorkaygiyo hadaa si khaldan wax u fahmay hadhiin dariskaygiyo aabi federaalkow si khaldan hadaa wax u arkay inaad gacanta iga qabataan beed adoo la yaan bari lagu arag colaadna waxba kama taqaanin nabadna waxba kama taqaanin waxaan muuqaalkay ku soo gabagabeynaya oo halka imaamad ka dhacday Puntland oo aslaha garowe ka dhacday aslaha reerka nugaal degan ama khaasatan ismada Ciise Maxamed Barraale gelin ka bixin doona oo lagu la kacay nin siyaasi ah oo hadda wax ilahayn laakiin musharax madaxweyne Puntland ah iyo Soomaaliyaba oo la dhaho magaciisa mashruuc oo Cali Saleebaan dhibaato lagu la kacay waxa la raali gelin inta la is aqliyeysto baa la oran doonaa meeshan waa caasimad sharci bay caasimad ku tahay xabada qarna lala soo dhaafay oo boosaas ninka loogu ridi waayay oo carma xataa ciidan Puntland ba joogay loogu ridi waayay oo sheer bilo fariisan waayay oo intaas lala soo dhaafay oo nugaal lala soo aaday waa dakana Cali Saleebaan laga galay si nugaal meel u taala cid ka jawaabtana oo ka garaabtana waa garan waay halkan imaamadaas waxaan ka saarayaa siyaasi mashruuc waa ninka sawirkiisa u jeedaan oo ciidankiisa iyo staafkiisa lagu laayay magaalada garowe lagu laayay oo xabad lala dhacay oo dadka nugaal joogan hal qof oo ka garaaba oo dhaha war dakanadan haddii Cali Saleebaan maanta ka aamusay oo nin Maxamuud Saleebaan uu geystay oo annagana lala soo hoosgalay oo wixii sakhraanka ayo muumin oo cabtooyda ahaa loo adeegsaday warta mid naga haraysa ma ahe odayaasha dhaqanka raaligelinaha ka bixiyaan gobolka nugaal itri ma arag se halkan ninka beeldaajiya waa ka raaligelinaya isaga iyo jifiisa Cali Saleebaan waa ka raaligelinaya waxaa leeyahay waxaan la qabna maaha afka dadka nugaal jooga anaa ku hadlaya khalad dhacay oo dowladnimada laga galay oo Cali Saleebaan laga galay oo siyaasigooda rugcadaaga laga galay Cabdiqaadir Muumin bay dekano waxay gelisay buuraha gelisay Daacish u geysay ninkan nin wax bartay weeye laakiin laftirkiisu waxaan loo geysanay waa nin oo meel bay ugu qoran tahay isaga reerkiisaba ma berri markii Ciise qabsaday soo bixi doonaan ma markay iyagu lafkooda qabsaday argoosan doonaan ma iisheeg ma si kale u argoosan doonaan ma aqaan laakiin kullayba nabarkaasi waa nabar iyaga meel ugu qoran laakiin waxaa leeyahay ninkaas arrintaa lama qabno laga raalli ahaada nin sakhraan oo muumin la dhahaa sameeyey oo idinka raaligelinaya anoo garaadkii gobolka nugaal waxaan dul istaagaya waqooyi bari Soomaaliya maanta firdhiya waa hadlay wuxuu ka hadlay horta inta firdhiya hadalkiisa anoo tacliiqinaya mid idiin sheegaya Puntland waagi la dhisayay aeroboorkeedu banka qiyaam iska dhaafay orodii ashahaadu ah waa ku celinaya kaas Somaliland ka daran buu ahaa labada maamul sida maanta waqooyi bari loo aasayba meel gooniye mashaariic ma jirin waxba ma jirin galmudug isaasu kale hirshabelle isaasu kale aniga waxaan fahmi waayey kuwa mucaaradka ah ee waqooyi bari Soomaaliya gaajada haysaan fahmi waayey waa kow waxaan fahmi waayey shacabka reer waqooyi bari iyaguna Soomaaliya waxa ay cod dheer ugu sheegi waayeen walaalo haddaan gaajaysannahayna garowna aadi mayno hargeysana aadi mayno ee garow iyo hargeyso qulubta allaha nooga kireebo inaad tirahdaan maxaa idin diiday waxaa soo haray xamar maxaa ka rabtay waxaa ka rabtay maamulka in lagu aqoonsado madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha fadhi kugu yimi sharaf iyo karaamada inta leeg bay ku sameeyeen mashaariic iska dhaafay ciidanka waqooyi bari Soomaaliya wixii Soomaaliya hadda uga go'an oo dhaqaalahooda way qaataan oo lagu kabi karo wixii kale waa mashaariic process maraya dhaqaalaha lagu suuq geenaya shidaalka lagu suuq geenaya hantida lagu suuq geenaya inuu maamulkaaga difaaco wixii gaajeysan iyo cabtoow iyo qashina iyo qurun hargeysa aadaya wallahi ka daba tagi meena oo billahi oo tallah culays been nagala tagay wixii hargeysa aaday wixii garow aada laakiin maanta kadib mid ogaada ciidamada waqooyi bari Soomaaliya wixii awood u haystaan rasmi ah in deegaanada waqooyi galbeed ay gacanta ku hayso dhan inay dooxata ka sameeyaan soo iyagu nabadda ma diidin iyo waliba kan Puntland inay labadaba dooxata ka sameeyaan oo dhigta dhiigga u daraan waxay arkaan firdhiyo warka uu idin soo faray
oo fariinta ahayd oo ahayd gooja cadalaba soo socota waa warkaas weeye ciidanow hadduu soo baxo arina waa fulid geel haddaad dhici karta dhac haddaad ari dhici karta dhac haddaad loo dhici karta dhac haddaad iisha gaariqaad dhici karta dhac haddaad mid kale oo naag kufsan karto kufso saasuu ku leeyahay firdhiye gooja cadalabaad baa soo socota macnaheedu waa maxay haddaa shalay xishoonnay markan annagaa weerar uu ku yiri ciidankana maanta kadib firdhiye waa fasax shalay ma ahayd muusow ciidanka fasax ma ahay shalay firdhiye maanta kadib ciidanka waqooyi bari soomaaliya xor wey inay deegaanadooda difaacdaan meel kasta oo ay qulqulata ka geysan karaan inay ka geystaan af cad buu maanta ku sheegay xishoodkii baa dhammaaday walaalnimadii waa dhammaatay maxaabiistaana soo hartay soo maaha isaaq gusku kusii dheeraynaya maxaabiistaan hadda kuu sheegaya waa la xukumayaa maxkamaddaa la geenayaa wixii dil toogasho ay dadkan laayeen waa toogasho wixii xabsi daa'ina waa xabsi daa'in wixii 30 sano iyo 40 sano cimriga iyo madaxaha ku furta aan waa madaxaha ku furto cid allaale nin kasta xukunkiisa waa u marayaa waa biyo kama dhibcaan weeye maxaabiista nin la sii deynaya jirin maxaabiista la siyaasadeyn karaan jirin dadkan iyo deegaankan hubna waa haystaan rasaasna waa haystaan haddana waxay soo wadaan webiga waxay soo wadaan baa weyn ee meel ku qoro shalay hadday gobonnimo dagaalameen oo markii cisaaq jabay ee ka hareen maanta iyagii baa weerar ah oo gobonnimadani ka tegey gudnimo qaatay madaxweynahooda warkooda qaatay amar hadduu soo baxo waa fulin idinkoo calacalaya oo leh reer guuraabaa halkan gabar laga kufsaday ilmo yar baa halkan lagu jaqaaqsiiyey kuwa xoolo laga dhacay dhaan baa la waayey gaari dhan baa la aasay tignika dhan baa la laqay soo midaan joogi waayey maalin kasta barabaka soxnaa fakatay mid yara abti u tahay u yeero qashin kale u yeero waa joogi weydeen soo maha waxaad ka heshaan waxbaa iga siin afka firdhiye aad kula hadlay fariintu maanta firdhiye idiin soo faray oo daaha laga qaaday baan hawada idiin